Ku soo dhawow ACS Soomaaliya, fadlan noo subscribe garay and like noo saar. Waxaan maanta ka hadli doonaa qiso yar oo cajiib ah oo ka dhacday waddankan Mareykanka. Fadlan dhageysi wacan. qiso cajiib ah oo dhex martay nin iyo xaaskiisa. qisadan cajiibka ah Bismillahirrahmanirrahiim. Aadam iyo Raaquul oo ah lamaane u dhashay waddanka Mareykanka. Aadam ayaa aqoonsan waayay ama garan waayay xaaskiisa xilli uu hurdo ka soo kacay. Xilli aroor ah bishii September sanadkii 2016 ayaa Raaquul waxay soo gashay qolkii jiifka saygeeda iyada oo raadinaysa waxayna ku eegtay daymo cajiib ah. Aadam ayaa si ula hadlay Raaquul si qof uusan garanaynin oo kale, mana uu muujin wax kalgacayl ah. Waxa uuna u muuqday qof aan garanaynin cidda uu la hadlayo qofka uu yahay. Raaquul ayaa tiri waxaan ku weydiiyay, ma garanaysaa halka aad ku sugan tahay? Ma garanaysaa sanadka aan ku jirno? Waxa kale oo ay su'aalaheeda ku dartay, ma garanaysaa magacayga? Waxa uuna ugu jawaabay dhammaan su'aalihii ay weydiisay, ma garanayo. Raaquul ayaa isku daysay in ay u xaqiijiso mar walba Aadam in halka ay ku sugan yihiin ay tahay gurigooda, in ay tahay xaaskiisa, 3 carruur ahna ay u joogaan oo ay isaga u dhashay. Aadam ayaa markuu halkaasi maqlay bilaabay in uu ooyo. Aadam ayaa yiri, waxaan ka doonayaa in aad sharcigayga ii keento. Aaway taleefankayga iyo sharcigayga? Raaquul ayaa waxay u sheegtay Aadam in uu si degdeg ah u labisto ayna u geyso isbitaal. Waxa ay ka murugeysanayd in uu xaalad halis ah ku sugan yahay oo maskaxdiisa wax gaareen. Aadam ayaa labistay waxa uuna u raacay isbitaalka xaaskiisa oo uu rumaysan yahay in ay tahay qof ku cusub. Raaquul waa ay u dabacsanayd Aadam sababtoo ah waxa ay ogayd in uu maskaxda si uun uga xanuunsanayo hadda ka horna uu xanuunsaday kadib markii Aadam isku dayay in haweeney ay disho 5 sano ka hor. Mar uu Aadam 35 sano jir ahaa ayuu maamul ka soo noqday qayb ka mid ah shirkad weyn oo isgaarsiinta ah kuna taalla Mareykanka. Waxa uu sidoo kale madax ka ahaan jiray kaniisad ku taalla gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Kadib markii ay kala tageen xaaskiisii hore ayaa waxa uu bilaabay xiriir cusub, balse dhibaato weyn ayaa ka raacday xiriirkaas cusub ee uu sameeyay Aadam. Gabadhii cusbayd ee uu la soo hasaaway ayaa ku noqotay mid dhib badan. Ugu dambeyntiina waxa ay jirkiisa qayb ka mid ah ku dhajisay koronto, iyada oo uga tagtay korontadii si uu u geeriyoodo. 3 jeer ayaa wadnuhu istaagay intii loo sii waday isbitaalka, balse waxa uu ku badbaaday gargaarka degdegga ah oo loo fidiyay. Aadam ayaa galay xaalad miyir dabool ah muddo ku siman 4 bilood. Aadam oo ka sheekeeyay qisadan ayaa yiri, marka aan soo miyirsaday ma garanayn qofka aan ahay, ma garanayn in aan xaas leeyahay oo kala tagnay, 2 carruur ahna ay ii joogaan, ayuu yiri Aadam. Aadam waxa uu isbitaalka ku jiray sanad iskaga oo baranayay halka iyo socodka, balse xasuusta noloshiisa hore sooma aysan laabanin. Dhowr bilood ayay ku qaadatay inuu Aadam dib u barto carruurtiisa. Markii ugu horeysay aad ayay ugu adkaatay inuu eego carruurtiisa. Sidee ayuu aabe ilmihii u dhalay u hilmaami karaa, ayuu yiri Aadam. Markii uu guriga ku soo laabtay waxaa ka buuxay guriga sawirro uusan xasuusan karin shaqadiisii hore. Ma uusan awoodin in uu ku laabto, waxa uuna ka baqay inuu hilmaami waayo sida ay ahaan jireen noloshiisii hore iyo sida ay u qurxooneyd xilligaas. Aadam waxa uu go'aan ku gaaray inuu iskaga tago magaalada, nolol cusubna uu bilowdo. Waxa uu la aaday carruurtiisa magaalo ku taalla Arizona, halkaas oo uu
ka bilaabay nolol cusub iyo shaqo kale. Sanadkii 2012 ayuu ka bilaabay barta internetka inuu kala hasaabo fariimahana uga diro Raquel oo 30 sano jir ah kana shaqeynaysay shirkad oo ay ka ahayd madaxa suuq-geynta. Raquel iyo Adam waxay isku afkarteen in ay ku kulmaan magaalada Phoenix. Ugu dambeyntii, halka ay ku ballameen ayaa waxa ugu tagay Adam oo ku soo labistay surwaal jeans ah iyo jaakad. Dharkaasi oo ahaa kuwii ay ku ballameen. Asaga iyo Raquel wayna wada kulmeen kadib dhowr bilood oo uu xiriirkoodu socday ayaa waxay keensadeen carruurtooda bishii July 2015 waxa ayna ku aqal galeen magaalada Phoenix. Balse waxaa meesha ka baxay dhammaan xasuusta 5 sano oo ay wada noolaayeen. Adam iyo Raquel markii uu isbitaalka ku jiray, Adam daawooyinkan uu qaadanayay waxa uu u yeeran jiray qofka kaliya ee uu ku kalsoon yahay, taasoo ahayd hooyadiis. Waxa ayna u xaqiijisay inuu jeclaa Raquel, haatanna uu guursaday Raquel. Waxa Adam iyo Raquel mar kale isku barteen oo ku hasaaween isbitaalkii uu ku jiray, iyaga oo ku kulmi jiray bannaanka iyo goobaha lagu qaxweeyo. Way adag tahay inaad jeclaato qof markii uusan ku ogeyn cidda aad tahay, jacaylna kuu muujinaynin, ayay tiri Raquel. Carruurta Adam iyo Raquel ayaa ka soo kabsaday isbitaalkii ku yimid noloshooda iyo xanuunkii la soo darsay aabahood. Adam haatan waxa uu soo noqday xasuusta waxyaabo badan, balse xasuusta 3 sano kahor ayuu xasuusan la'yahay. Waxaana ka mid ah waxyaabaha badan oo muhiim ah sida arooskoodii. Raquel lamaanahan ayaa hadda mustaqbalkooda ka fakaraya, carruurtooduna waxa ay dhammaysteen waxbarashada kolleyjka. Markaa waxa ay qorsheynayaan Adam iyo Raquel in ay dhigtaan aroos cusub. Walaalayaal, haddaad ka hesheen qisadan, fadlan kanaalkeena noo subscribe gareeya, like noo saara, galeelkana noo riixa. Aad baan u mahadsantihiin.